Assalaamu calaykum. Guud ahaan waxaa xilligan dunida duulimaadyo ka sameynaya in ka badan 20,000 oo diyaaradood oo rakaab ah, kuwaas oo u kala safrinaya wadamada caalamka. Haddaba waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa 10 diyaaradood ee ugu ballaaran dunida xagga duulimaadyada. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nambarka koowaad. Kaalinta koowaad waxaa ku jirta American Airlines oo ah shirkadda diyaaradaha ugu weyn ee caalamka. Waxayna sanad walba dunida u kala safrisaa in ka badan 250 milyan oo rakaab ah. Maalin walba ku dhawaad 7,000 oo rakaab ayay dunida u kala safrisaa. Waxaana u shaqayso ay leedahay 956 diyaaradood, 350 garoomo diyaaradeed ayay caga dhigataa, taasoo ka dhigaysa inay ka degto 50 dal oo ku kala yaala 6 qaaradood ee dunida marka laga reebo Afrika. Nambarka labaad. Kaalinta labaad waxaa ku jirta diyaaradda Delta Air oo isla Mareykan ah. Waa shirkad diyaaradeedka labaad ee caalamka ugu weyn. Waxay sanad walba qaadaa rakaab kor u dhaafaya 230 milyan oo rakaab ah. Maalin walbana ku dhawaad 5,000 oo rakaab ayay dunida u kala safrisaa. Waxaa u shaqaysa 909 diyaaradood. Waxayna ka degtaa 325 garoomo oo caalamka oo ku kala yaala 52 dal oo caalamka. Nambarka saddexaad. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta diyaaradda Southwest oo isla Mareykan ah. Waxay sanad walba qaadaa rakaab kor u dhaafaya 210 milyan oo rakaab ah. Waxay ka degtaa 102 garoon oo Mareykanka iyo Laatiinka ah. Waa shirkad diyaaradeedka rakaabka ugu badan ku safrisa gudaha Mareykanka, ahna shirkadda ugu weyn shirkadaha qiimaha tikidhkoodu uu hooseeyo. Waxaana u shaqaysa 752 diyaaradood. Nambarka afaraad. Kaalinta afaraad waxaa ku jirta shirkadda diyaaradaha United ee laga leeyahay isla Mareykanka. Waxay qaaday sanadkii tegay in ka badan 190 milyan oo rakaab ah. Waxaa u shaqaysa 797 diyaaradood. Waxayna ka degtaa 342 garoon oo caalamka. Marka la eego dakhliga soo gala, masaafada ay jarto, iyo inta diyaaradood u shaqaysa waxay soo gashay kaalinta afaraad. Nambarka shanaad. Kaalinta shanaad waxaa ku jirta shirkadda diyaaradaha ee Ryan ee laga leeyahay Ireland. Waa shirkadda ugu weyn ee diyaaradaha gudaha qaaradda Yurub. Waxay qaadaa rakaab kor u dhaafaya sanadkii 142 milyan oo rakaab ah. Waxay ka degtaa in ka badan 40 dal. Waxaana u shaqaysay 342 diyaaradood. Nambarka lixaad. Kaalinta lixaad waxaa ku jirta diyaaradda Chinese Southern Airlines. Waa diyaaradda ugu weyn guud ahaan qaaradda Asia. Waxay qaadaa rakaab kor u dhaafaya 130 milyan sanadkii. Waxaana u shaqaysa 623 diyaaradood. Waxayna ka degtaa 193 garoon oo ku kala yaala 35 dal oo kala duwan oo caalamka. Nambarka toddobaad. Kaalinta toddobaad waxaa ku jirta shirkadda diyaaradaha Chinese Eastern Airlines. Waxay qaadaa sanad walba in ka badan 120 milyan oo rakaab ah. Waxaana u shaqaysa 597 diyaaradood. Nambarka siddeedaad. Kaalinta siddeedaad waxaa ku jirta shirkadda EasyJet oo laga leeyahay Britain. Waa nooca tikidhada qiimaha ugu hooseeya guud ahaan Yurub. Waxay qaadaa in ka badan sanadkii 100 milyan oo rakaab ah. Waxaana u shaqaysa in ka badan 300 oo diyaaradood. Nambarka sagaalaad. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jirta shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines oo sanad walba qaada in ka badan 93 milyan oo rakaab ah. Waxaa u shaqaysa in ka badan 352 diyaaradood. Waa shirkadda booqata qaaradaha oo idil. Waana diyaaradda samaysa duulimaadyada ugu badan aan hakad lahayn ee dunida ka dhaca. Sidoo kale waa diyaaradda ka degta dalalka ugu badan ee caalamka. Waxay caga dhigataa 315 garoon oo ku kala yaala 126 dal oo caalamka. Nambarka tobanaad. Kaalinta tobanaad ee ugu dambaysa waxaa ku jirta shirkadda diyaaradaha Chinese Air oo iyadana qaada rakaab kor u dhaafay 90 milyan oo rakaab ah. Waxaa u shaqaysa 429 diyaaradood. Waxayna ka degtaa in ka badan 200 oo madaar. 10kaas diyaaradood Turkish Airlines ayaa ka soo muuqatay listiga diyaaradaha ugu wanaagsan. Sidoo kale afarta ugu horeysa waxaa laga leeyahay Mareykanka, halka 3 ka mid ah oo Turkish Airlines ay ku jirta laga leeyahay Yurub, halka 3da soo hartayna laga leeyahay Shiinaha. Aaway Afrika wax laga leeyahay. Afrika Bell Amos Afrika wax laga leeyahay ma jiraan.